السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha muxsiniinta meel walba aad joogtaan ilaahay dartiisa ayaa idin jeclahay waan idin salaamayaa. run ahaantii maalimahan ma soo dhigin muuqaal, aad ayaan u mashquulsanaa. ciidii kadib shaqo ayaa noo bilowatay, ilaahay cudurkan hanaga dulqaado. caawa waxaa idin wadaa fariin inta badan ay ka farxi doonaan, ay wada farxin doonto. fariintaas oo ah fariin kheyr ah, fariin aan ku gaarayno wanaag iyo horumar iyo ilaahay raali ahaanshihiisa. run ahaantii intaan fariinta idin gudagelin waxaan rabaa inaan waxyar idin soo xasuusiyo dadkii la soo biloway youtube-kan. magacyo badan ayuu soo yeeshay, laakiin akhiiran waxaan kusoo gebagabeeyey magaca ah almuxsiniin. almuxsiniin fikradeeda keligeyga ma lahayn, rag walaalo ah ayaan la tashtay. waxaa yidhi youtube-kan maxaan ku magacaabaa? qaar baa yidhi magacyo kale, laakiin magaca almuxsiniin ayaa aada ii cajbiyey. waxyaabo yaryar ah waan soo qabanay way jiraan, inkastoo aan rajaynayno halahaas ka badan inaan gaarno biidni illaah. waana gaari doonaa annagoo gacmaha haysano, keligayga maaha. intiina ay daawanaysa walaalaha kheyrka jecel oo aniga aan ugu magac daray walaalaha muxsiniinta ee ku xiran barteyda youtube-ka iyo facebookayga maxamed nur aasto. marka aan u gudagalo mowduuca caawa, waxaan rabaa inaan idin soo bandhigo fariin ay iga soo gaartay walaal ama saaxiib oo jooga Soomaali. wuxuu aad u la murugooday gabar haysata 3 caruur oo aqoon ah, ninkeedan dhintay, ijaarkiina ay iska bixin weysay, iska badaaya masaarifta caruurtana ay la liicayso ama ay dhib ku helayso. waa ognahay Soomaali qof aan qof saacida aan haysanin, guri ijaarna degan, qof ragoo saacidana aan lahayn oo ilmo aqoon aan haysata, aad ayay u xanuun badan tahay. marka walaasheena waxaa walaal muxsin ah ugu deeqay dhul bannaan. dhulkaasoo yidhi maxamedow, dhulkan ayaan gabadhaas u yaboohay, waxaan rabaa in loogu dhiso wax alaala wixii la awoodo. hadal aan isku xelinay kadib waxaa noo soo baxday in haddii la yidhaahdo dhul weynaa loo dhisaa, way istaahilaan in guri qurux badan loo dhiso. waa agooman. rasuulka salawaatullahi calayhi wasalaam ayaana inoo dardaarmay in laga farxiyo oo waxay jecel yihiin ama wax wanaagsan loo sameeyo. laakiin wadcigaan lagu jiro, inta meel kale laga gaarayo ama wax fiican looga helaayo, waxaa isla garanay in loo dhiso bacweyno. dadka Soomaaliya jooga ayaa yaqaana bacweynaha, wax saas ma kalifaayo. 2 qol ama 3 qol ee musqushooda iyo jikadooda waxaa laga yaabaa in lacag yar ilaa iyo $1,000 camal ay gaarto. marka walaalaha muxsiniinta waxaan ka codsanayaa in barnaamijkaas ay nala garab istaagaan, sidii horeba ay uga qayb qaateen barnaamijyo kuwan oo kale oo aan idin soo gudbinay, oo xataa aan lala soo daahin. run ahaantii shilinkii maanta aad dhiibatid ama dollarkii maanta aad baxsatid, ilaahay waxaa laga yaabaa inuu kuu labalaabo. ilaahay waxaa laga yaabaa in caradiisa ama dembi adiga aa gashay inuu ilaahay kaaga cafiyo. ilaahay waxaa laga yaabaa in qof adiga kaa xanuunsanaa ama nafsadaada aa xanuunsaneed inuu ilaahay kugu caafiyo. u niyeyso nafsadaada, u niyeyso waalidkaaga, u niyeyso inay kuu noqoto sadaqa jaari. inta gurigaas lagu nool yahay oo lagu cibaadaysanayo, lagu tukanayo, lagu nool yahay, in ilaahay ajar uu agtiisa kaaga socdo. qarashka aan doonayno maaha qarash sidaas u fara badan, waa lacag ilaa $1,000 ilaa $1,200 gaaraysay ila tahay. marka waxaa rabnaa walaalaha muxsiniinta ah in barnaamijkaas ay kasoo jawaabaan sidii horeba ay u sameeyeen. waxaan hoos soo dhigi doonaa nambarkayga. qofka marka rabaa inuu ka qayb qaato, messengerka toos higala soo hadlo ama whatsappka higala soo xiriiro. waan u aruurinaynaa insha allah, waan u diraynaa. weliba insha allah waan ka farxin doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. markaan sameyno kadib waxaan soo dhigi doonaa muuqaal guriga oo loo dhisay agoomanka insha allah biidni illahi karim. waxay noqon doonaa transparenty, wax laga cabsanayo maaha. qof culmo oo ilaahay ka cabsanayo ahludiin ayaa ila soo hadlay oo nafsigiisa dhulka uu baxsaday, sadaqa ahaan uu baxsaday. ilaahay kheyr ha siiyo. marka insha allah biidni illahi kariim, fariintaas ayaa caawa idin waday. waa ogahay kheyrka inaad jeceshihiin, anina kheyrka ayaa idinla jecelahay, ilaahay dartiisna waa idin jecelahay. ilaahay marka arrintaa hanoo fududeeyo. qof alaale qofka markaa adduunka waxaa lagu jiraa waqti adag, lockdown ayaa lagu jiraa, dadka badanaa ma shaqeeyaan. laakiin haddii adiga aadan awoodin, waxaa lagaaga baahanyaa 2 shay inaad samaysid. midda koowaad waa inaad u ducaysaa inuu ilaahay arrinkaa u fududeeyo gabadhan walaasheena ah. midda labaadna muuqaalkan waa inaad u sheer garaysaa. laga yaabaa qof
aan ogeyn ama uu rabo inuu wax baxsado oo laakiin uusan garanayn meel uu ku bixiyo inuu ilaahay waafajiyo muuqaalka arko oo inala soo xiriiro laga yaabaa guriga anaga hadda aan rabno mid ka fiican in loo dhiso kan anaga hadda aan rajaynayno mid ka fiican ka weyn in loo dhiso ayaa laga yaabaa hadda kor waxaa maqlay sheekh khudbeynayo oo muxaadaro akhrinaya soo dhahayo haddii qof farin kuu soo diro oo ku yidhaahdo warniyo moobeelkaaga uu soo waco war waxbaan u baahanahay wax igu soo tuur ha dhibsanin hana ka welwelin waa fariin yacni ilaahay dhinaciisa kaaga timid waa kheyr ilaahay dhinaciisa kaaga yimid u degdeg saa kuwa wax ku sii lahayd ama waa saa wax ugu bixin lahayd laannahu ilaahay qofkuu jecel yahay ayaa kheyrka waafajiya sadaqada aa baxsatid ilaahay agtiis ilaahay waxba nagama baahna laakiin ilaahay anaga ayuu nagu imtixaamayaa marka insha allah walaalayaal aan u degdegno kheyrka insha allah biidni illaahi kariim waxaan rajaynaya maalimahaas soo dhow ama soo socda hadduu ilaahay kala noqdo inaan arki doono gabadhaas walaasheen iyo agoomanka haystay inaan ka xarayno dhaxanta una dhisno guri ay ku hooydaan oo ayaga milkigooda ay leeyihiin inta taas ka horeysa waxaan idiin rajaynaa insha allah inuu ilaahay cudurka idiin mootiyo caruurta baariyaal inuu ilaahay idinka dhigo ilaahay caruurtiina inuu ilaahay idinka dhigo kuwa mu'miniin oo muttaqiin ah oo diinta xifdisan qur-aanka ilaahay kuwa insha allah jeelasha ku jirana ilaahay inuu ka soo saaro kuwa xanuunsan inuu ilaahay caafiyo kuwa dhintana inuu ilaahay inoo naxariisto والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.